His work ethic was simple: to create a better everyday life for the many people. Ingvar Kamprad founded IKEA when he was just 17. waxa uu ahaa wiil yar oo ka soo jeeda qoys beeraley ahaa oo reer miyi ahaa. waxa uu ahaa mid la dhibaataysan fahmidda casharada dugsiga. isagoo 5 jir ah ayuu bilaabay ganacsiga. aabihii lacag uu hadiye ahaan u siiyey isaga oo yar ayuu ku aasaasay shirkad maanta tan ugu weyn ee caalamka soo saarta qalabka guryaha, taasoo in ka badan 400 oo xarumood caalamka ku leh. IKEA waa shirkad ganacsi oo farsamaysa iibisana agabka guryaha. waa shirkadda ugu weyn ee caalamka soo saarta agabka guryaha ama wax loo yaqaano furniture-ka. waxaa lagu aasaasay waddanka Sweden sanadka markuu 1943. waxaa aasaasay wiil yar oo 17 jir ah oo la oran jiray Ingvar Kamprad. lacagta uu ku sameeyay shirkadda waxay ahayd lacag uu aabihiis hadiye ahaan u siiyey maadaama uu waxbarashada dugsiga horumar ka sameeyey. Ingvar waxa uu qabay xanuunka loo yaqaano dyslexia, xanuunkaas oo ah xanuun haleela carruurta yaryar kaasoo ku sababa akhris liidasho, casharada ah iyo faham daro. Ingvar ganacsigii uu sameeyey waa uu guulaystay. maantana IKEA waxay 433 xarumood ku leedahay 52 dal oo caalamka ah. sanadii 2018 IKEA waxay iibisay alaab qiimaheedu kor u dhaafaya 45 bilyan oo dollar. website-ka IKEA waxaa ku jirta alaab kor u dhaafaysa 12,000 oo nooc. intii u dhaxaysay September 2015 ilaa Agost 2016 muddada sanadka, website-ka IKEA waxaa booqday dad kor u dhaafay 2 bilyan oo qof. IKEA waxay isticmaashaa alwaaxa ugu badan ee caalamka maadaama ay tahay shirkadda soo saarta agabka ugu badan ee alwaax ka samaysan. sidoo kale cuntooyinka yaryar ayay samaysaa ama ay soo saartaa. magaca IKEA waa erayo la isu geeyey oo u taagan Ingvar Kamprad oo ah ninkii aasaasay shirkadda, Elementride oo ah beer yar uu ku dhashay, iyo Angaride oo ah tuulo u dhoweyd beerta, kaasoo micnaheedu uu noqonayo Ingvar Kampradkii ka yimid Elementary Angaride. Ingvar Kamprad from Elementary Angaride. Ingvar waxa uu geeriyooday sanadkii hore bilowgii isagoo 91 jir ah. majalada Bloomberg waxa ay sheegtay inuu waa shakhsiga 8aad ee caalamka ugu hodansan sanadkaas. hantidiisuna waxay dhammeyd 58 bilyan oo dollar. shirkadda waxaa maanta maamula walaalihiisa. waxaa la xusaa Kamprad inuu bilaabay ganacsiga isagoo 5 jir ah. waxa uu alaabta ku iibin jiray xaafadaha isagoo baaskiil adeegsanaya, sida qalimaanta iyo agabyo kaloo yaryar. wiil yar oo reer miyi oo beerfalata ah ayaa aabihii lacag uu siiyey ku sameeyey shirkad, kaasoo bilaabay inuu baaskiil alaabta ku geeyo guryaha, maantana ah tan ugu weyn ee caalamka soo saarta agabka guryaha. dakhliga IKEA waxa uu kor u dhaafayaa 44 bilyan oo dollar. xarunta ugu weyn ee shirkaddan waxay ku taallaa dalka Netherland. hal-abuurka ganacsi waa mid horseeda inuu bedelo nolosha qof ama bulsho dhan. wiilkii beeraleyda ahaa shirkaddii uu aasaasay maanta waxaa u shaqaysaa in ka badan 200,000 oo qof, kuwaasoo qoysas leh kuna tiirsan. Ingvar keliya noloshiisa ma uusan bedelin, sidoo kale malaayiin qof ayuu noloshooda bedelay. Ingvar oraah cajiib ayuu ka tegay. waxa uu yidhi, sunta ugu halista badan waa dareenka guusha ama inaan raadino yool. daawada looga hortagi karana waa fiid walba inaad ka fikirtaa maxaa berita la qaban karaa, weliba si ka fiican hadda.